waxaan jecelnahay maanta inaan idinla wadaagno sidaas oo kale arrimihii 19 ka dhacay iyo dhammaan waxa la xiriira doorashooyinka. waxaan rabaa inaan ugu hormariyo sida aan hore u sheegnaba mudaharaadku waa xaq dastuuri oo dadka Soomaaliyeed dhamaantood ay leeyihiin mar hadday ku cabirayaan ra'yigooda si nabada lama farageli karo. dawladdana waxaa waajib ku ah inay ilaaliso, laakiin 19 waxaa dhacay nasiib darro, isku day qaarajin dad waaweyn oo dalkan xilalkii ugu waaweyn ay ka soo qabtay oo jeclaa inay ka qayb qaataan mudaharaadkaas nabadeed in la isku dayo in la dilo. meeshaas dadaa ku dhintay, dadaa ku dhaawacmay, hantiyaa ku burburtay, ummad ayaa la argagixiyey. welina ma muuqato garaawsho in khalad dhacay. marka waxaan rabnaa inaan caddayno inaanan ka tanaasulin mowqifkeennii iyo mabda'eennii iyo xuquuqdii aan u taagnayn shala oo ahayd in uu suuro galo banaanbax nabadeed oo dadka Soomaaliyeed fikirkooda ay ku cabiraan oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahaato la carqaladeeyay darjirka Dahsoon insha Allah tabaaraka wa tacaala maalinta Jimcaha. marka dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa inay ka soo qayb qaataan. haddaan maanta xaqiijin weyno 60 iyo dhowr sano kadib inaan banaanbax nabadeed qabanno, macnaheedu waxa waaye dariiqii dowladnimada waxaa hor taagan caqabaad iyo diktatoriyad iyo xurriyad la dagaalan iyo dowlad burburin. waxaan rabnaa in la soo baxo barkulankeenuna waa sida la sheegay daljidka Dahsoon iyo intaasoo dheeroo waddo kasta iyo jid kasta inaan ku soo baxno, irid kastana aan ka mudaharaadno ayaa ballanteen ay tahay. maxaan saas u yeelaynaa? waxaan saas u yeelaynaa madaxweynaha xilkiisa dhammaaday yaa wuxuu rabaa Soomaaliya inuu kala dooransiiyo dagaal sokeeye iyo dictatorship. aan kaligay taliyo ama dagaal sokeeye aan gelinayo, labadaba inaan isku awood, isku caqli, isku maskax iyo isku maal ku diinaa rabnaa. oon dhahno kala talisna ma jiro, dagaal sokeeyana ma ogolin. cid kale isku halaynayna ma jirto oo annaga aan ahayn. laa beel caalam aan jirin, waa nimanka u durbaantumaya farmaajo oo xilligiisii dhammaaday waxaa aragtayna sameeyey cidda weli la shiraysa oo mas-uuliyad iyo sharciyad inuu leeyahay kula macaamilaysa waa beesha caalamka. ma sugayno. waxaana kaloo sugaynin dad aan isleenahay oo kalo hadeerta inii maqan oo caqli iyo garaad inay yeeshaan ku soo baxaana hadda ma sugayno, mana muuqato hadeertaan. hadday imaato waa ilaahay mahadiis. waxaan rabnaa marka inaan hoosta ka xariiqno 19 wixii dhacay Febraayo waa wax annaga aan ku dhegannahay ilaa meel la saarana meel loo dhaqaaqay aysan jirin. doorasho iyo doorasho la'aan iyo horaha loo socdo iyaan loo soconin waxay ku xiran tahay 19 wixii dhacay habeenkeedii oo madaxweynayaasha gadaashii taagan la weeraray iyo maalintii oo inteena kale saa ogtiin jidkan anagoo ku mudaharaadaynu ku xabadeeyay. arrintaas waa in meel la saaraa, hadday tahay golo ammaan, hadday tahay beel caalam, hadday tahay Soomaali, hadday tahay gobollo, hadday tahay dowlad federaal, waa in arrintaas meel la saaraa. iyadoo meel la saarin arrin la isaga tilaabsan karo ma aha.